kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel walba oo daafaha caalamka ka joogtaan kusoo dhowaada wararka duhornimo ee dhasheeg meediya. qodobada aad wararka iyaga ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baydhabo oo qarka u saaran dagaal iyo ciidan fara badan oo uu magaalada buurxakaba ku daabulayo madaxweynaha soomaaliya. akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku maqli doontaan iiraan oo burburisay shabakad basaasiin ah oo dalkeeda ka dilaacday. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan ee u diyaargarooba. aan ku bilaabay magaalada buurxakaba oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lasoo warinayaa in uu madaxweynaha soomaaliya ku daabulayo ciidamo boqolaal gaaraya si ay uga qayb qaataan gulufkiisa ka dhanka ah lafta gareen. xaaladda amni ee gobolka baay ayaa gashay weji cusub oo walaac leh kadib markii lagu soo waramay in madaxweynaha soomaaliya uu boqolaal askari oo hor leh ku daabulayo magaalada buurxakaba, kuwaas oo ku biiraya boqolaal kale oo horey halkaasi u joogay. tallaabadan ayaa loo arkaa qorshe militari oo dhabaha u xaaraya iska horimaad toos ah oo ka dhaca caasimadda kumeel gaarka ah ee baydhabo. wararka deegaanka ayaa tilmaamaya in ciidankan la qorsheeyey inay lug ku galaan magaalada baydhabo oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta buurxakaba, taas oo loo arko xeelad lagu doonayo in lagu hareereeyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka iyo si guud siyaasadda lafta gareen ee ah in uu doorashadiisa qabto oo la qorsheynayo in go'doon lagu geliyo magaalada baydhabo. dhinaca kale xaaladda ayaa sii cakirantay kadib markii madaxtooyada baydhabo ay xalay soo saartay qoraal digniin ah oo lagu sheegay in ciidamo beeleed ku hayb ah madaxweynaha dalka ay weerar ku soo yihiin magaaladaasi. qoraalka ayaa lagu nuuxnuuxsaday in dhaqdhaqaaqyadan uu khatar ku yahay xasiloonida deegaanka iyo nidaamka federaalka ee dalka ka jira, iyadoo dhanka kale oo ay u muuqato in dowladda federaalka ay xoogga saarayso gacan ku haynta marinada gala baydhabo si ay aakhirka ugu ruqaansadaan magaaladaasi. dhanka kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftar gareen ayaan isna fadhiyin, isagoo bilaabay sidii uu u abaabuli lahaa ciidamo tiro badan oo uu doonayo inuu ku difaacdo magaaladaasi. waxaa lasoo wariyey inuu diyaariyey kumanaan ciidamo ah oo tababaran islamarkaasina diyaar u ah inay ku dagaalamaan gudaha magaalada baydhabo. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ballaaran oo uu maamulka ku doonayo inuu kaga hortago iskuday kasta oo lagu carqaladaynayo amniga magaalada baydhabo ama lagu bedelayo hoggaanka lafta gareen iyo xukuumaddiisa iyadoo loo adeegsanayo cudud militari. dhowaan ayay ahayd markii uu madaxweyne lafta gareen tababar u soo xiray boqolaal askari oo cusub, kuwaas oo hadda loo diyaariyey inay qayb ka noqdaan dagaal laga cabsi qabo inuu dhex maro ciidamada federaalka iyo kuwa koonfur galbeed. saameynta amni ee ka dhalan karta iska horimaadkan ayaa ah mid aad u baaxad weyn marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee soo gaari kara ciidanka iyo shacabka. waxaa la saadaalinayaa barakac ballaaran oo saameeya kumanaan qof oo ku sugan magaalada baydhabo. sidoo kale dagaalkan wuxuu fursad dahabiya u noqonaya kooxda al-shabaab oo ka faa'iideysan karta kala qaybsanaanta ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka, taas oo horseedi karta inay dib u qabsadaan deegaano muhiim ah. akhbaaraadka dibadda, dowladda islaamiga ah ee iiraan ayaa burburisay shabakado basaasiin ah oo ku sugnaa shahrood xilli uu kacsan yahay loolanka dhinacyada badan leh ee ka jira bariga dhexe. jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ayaa ku dhawaaqday guul kale oo ay kasoo hooyisay dagaalka qarsoon ee lagula jiro sirdoonnada mossad iyo CIA. laamaha amniga ee dalkaas ayaa gacanta ku dhigay 3 ruux oo lagu eedeeyey in ay u basaasayeen goobo xasaasi ah, kuwaas oo lagu qabtay ama gacanta lagu dhigay iyagoo ku sugan magaalada shahrood ee gobolka simnaan, sida ay baahisay warbaahinta tasniim. dadka la qabtay ayaa ku guda jiray ururinta dukumentiyo iyo macluumaad sir ah oo la xiriira xarumaha militariga iyo kuwa ammaanka. magaalada shahrood waxa ay caan ku tahay inay hoy u tahay xarumo muhiim u ah barnaamijka gantaalada iyo kuwa difaaca, taas oo ka dhigaysa bartilmaameedka koowaad ee ay indhaha ku hayaan hay-adaha mossad iyo CIA-da. eedeysanayaasha ayaa lagu toonsan yahay inay macluumaadkaas u gudbiyeen dad xiriir la leh dowladaha Maraykanka iyo Israa'iil,
kuwaas oo ay Iiraan u aragto cadowga koowaad ee ka dambeeya falalka qalqalgelinta ah ee gudaha dalkeeda ka socda. Iiraan hadda uma muuqato mid difaac keliya ku jirto, balse waxay wadaa guluf ballaaran oo ay kula dagaalamayso boqolaal sirdoon ah oo gudaha dalkeeda lagu beeray sannadihii ugu dambeeyey. Sirdoonka Iiraan ayaa xoojiyey dabagalka lagu hayo shakhsiyaadka la shaqeeya hay-adaha dibadda, iyagoo adeegsanaya qalab casri ah iyo sirdoonno kala duwan si ay u fashiliyaan shabakadaha qarsoon ka hor inta aysan gaarin ujeedooyinkooda. Dowladda Iiraan ayaa fariin cad u dirtay cid kasta oo isku dayda in ay dhabar jabiso ammaanka qaranka. Ma jiro wax cafiin ah oo loo hayo dadka lagu helo basaasnimo iyo khiyaanada dalka marka la joogo Iiraan. Qofka eedeymahaasi lagu helo marka ay maxkamadi xukunto, durbaba waxa ay Iiraan ku fulisaa dil toogasho ama isla markiiba waxaa lagu fuliyaa daldalaad. Tan ayayna Iiraan uga gol leedahay inay digniin uga dhigto dalka Iiraan dadka ku sugan, oo ay u direyso fariin ah in cid walba oo isku dayda inay dalkeeda basaasto ay tallaabo noocaasi la kulmi karto. Dagaalkan sirdoon ee ka socda gudaha Iiraan waa qayb ka mid ah iska horimaadka weyn ee u dhexeeya Iiraan iyo isbahaysiga Maraykanka iyo Israa'iil. Inkasta oo labadan dal ay isgarabsadaan iyagoo adeegsanaya tiknoolajiyadda ugu sarreysa caalamka iyo lacago malaayiin dollar ah, haddana Iiraan waxay u muuqataa inay kaga adkaatay dhinaca sirdoonka dhulka iyo ka hortagga weerarada gudaha. Fashilinta shabakadda magaalada Shahrood waxay calaamad u tahay fashilka sirdoon ee dibadda iyo adkeysiga nidaamka amniga ee Iiraan. Inkasta oo cadaadis weyn saaran yahay Iiraan, haddana waxay weli awood u leedahay inay dhowrto siraheeda qaran, iyadoo dhabarjab weyn ku ah isgarabsiga Maraykanka iyo Israa'iil ka dhanka ah Iiraan. Tallaabada ay Iiraan uga hortagayso sirdoonka oo ay ugu weyn tahay qabashada basaasiinta ay hadda gacanta ku dhigtay. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa waxa ay guluf adag kala kulmaysay tan iyo markii ay xoogagga Islaamiyiinta ah la wareegeen dalkaasi dalalka Maraykanka iyo Israa'iil, oo ay muddadaasi ilaa iyo hadda si weyn isku hayaan. Maraykanka iyo Israa'iil oo isgarabsanaya, sidoo kalena garab iyo gaashaanbuur ka helaya dalalka reer galbeedka oo ay Yurub ugu horeyso, ayaa waxa ay cadaadis weyn ku hayaan dalka Iiraan, iyadoo ujeedka ugu weyn ee ay leeyihiin ay tahay in ay dalkaasi jilbaha dhulka ugu dhuftaan, sidoo kalena ay gaarsiiyaan heerka ay hadda joogaan dalalka Syria, Ciraaq, Liibiya iyo wadamo kale oo ay sidaasi oo kale Maraykanka hore ugu burburiyeen. Isla markaasina ay hadda Israa'iil iyo Maraykanku xilli walba oo ay doonaan weerar ku qaadaan, hawadoodana ay iyagu gacanta ku hayaan oo ay maamulaan. Ha yeeshee, Iiraan ayaa u muuqata in ay si weyn arrintaasi uga gilgilatay kana hortimaaday, iyadoo cunaqabatayn muddo dheer saarnayd aysan weli muuqanin wax weyn oo ay taasi ka tartay, islamarkaasina ay wax weyn ka beddeshay gulufka ay kaga hortegayso waddamadani, iyadoo muujinaysa in ay iska caabin heerkeedu sarreeyo weli samaynaysa. Guud ahaan daawadayaal, waxaa intaasi inooga eg wararkii duhurnimo ee Dhasheeg Media. Inta aynu ku kulmi doono warkan mid la mid ah, nabadgelyo.